waxaa qasab ahayd riyadana inay gaadho dadka aadka u waaweyn, laakiinse qalabkii ay ku gaadhsiin lahaayeen waxay kaga yimaadeen qasrigii boqoradda. wakhtigaas Sofia waa ila dhex cararaysay, laakiinse waxaa ku soo kacay hogaamiyaha kooxdan aadka u waaweyn. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada asxaabteeda sharafta badan. maanta waxaan ka hadli doonaa qaybta labaad filimkeennii The BFG, kaasoo ahaa mid aad u xiiso badan. qaybtii hore filimku waxay inoo marisay Sofia iyo odaygii waayeelka ah oo jooga goobtii riyada. halkaas wakhti fara badan ayay joogeen, laakiinse kama dambaystii waa ay ka yimaadeen. waxay ku soo noqdeen meesha ay ku noolaayeen. Sofia waa ay seexatay wakhtigaas. odayga waayeelkana wuxuu ahaa mid aad u naxariis badan. Sofia waa ay soo kacday, waxauna isku dayay odaygu inuu u sheekeeyo. waxa uu u sheegay wakhti hore inuu helay wiil yaroo bani aadama. waxa uu dhahay, kaasi ma uusan lahayn waa khalada, waan ka xumahay nasiib daro. jaakeedkan hadda aan gashana isaga ayaa iska lahaa. waxa uu ahaa saaxiibka keliya tii aan la noolaa. waxa uu u sheegay inuu goobtan keenay, laakiinse waa uu ka xumay wixii ku dhacay. waxa uu u sheegoo kale inuu wiilkaa yar bari si wax loo akhriyo. waxa uu ku dhahay, anigu ma rabo inaad sidiisii oo kale ay kugu dhacdo. isagu waxa uu ahaa wiil aad u qurux badan sida adiga oo kale. waxa uu u sheegay inuusan rabin ciqaabta uu mana wiilkaa yar iyadana inaysan marin. waxa uuna keenay goobtii agoomaha Sofia. waxa uu ku dhahay, halkan ayaad iskaga noolaanaysaa, aniguna dib ayaan iskaga noqonayaa. waxa uu qaatay boorsadiisii, laakiinse nasiib daro Sofia ma aysan ahayn mid ku qanacsan halkan. waxay ka codsanaysaa inay mar kale dib u raacdo. odayga waayeelka waxau rabay in aysan raacin agoontan yari, laakiinse iyadu waxay go'aan ku gaadhay inay iska soo tuurto goobtii ay fuushanayd. laakiinse nasiib wanaag waxaa badbaadiyey odaygii waayeelkahaa. isagu waxa uu oday aad u naxariis badan, ma uusan rabin inay dhibaata soo gaadho Sofia. labadiisa qacmood ayuuna ku qabtay, laakiinse markii dambe waa ay raacday isagoo oon raalli ka ahayn inay raacdo. waxay ku soo noqdeen goobtii ay ku noolaayeen dadka aadka u waaweyn, laakiinse nasiib daro kuwii waaweynaa waxay ogaadeen odaygan waayeelkaa inuu la nool yahay qof bani aadama. dhammaan kuwii waaweynaa waxay yimaadeen guriguu ku noolaa ninka waayeelkaha, iyaga oo raba inay arkaan qofkan bani aadamkaee la nool. waxay weydiiyeen qofka la nool cidduu yahay, waxayna arkeen gu'ii Sofia sidaan ku soo daawanay filimka qaybtiisii hore. waxay ku dhaheen, soo saar cidda halkan aad ku qoranayso. waxay bilaabeen wakhtigaas inay jejebiyaan dhammaan alaabtii guriga taallay. odaygii waxau isku dayey waayeelka ahaa qoridaba inuu soo qaato, isagoo isla wakhtigaas midka ugu weyn dhabarka kaga dhejiyey. waxa uu ka codsanayay inay dhammaan uga baxaan gurigooga. Sofia iyadu waxay aragtay sawir ku dhejisan gidaarka. sawirkaasina waxa uu ahaa boqorad. waxa ay ka codsatay boqoraddan sawirkeegu ku dhegsan yahay goobta in ay riyo u samayso, isla wakhtigaasna ay ogeysiiso inay jiraan duni kale oo ay ku nool yihiin dad aad u waaweyn. waxay ku dhahday, waxaan u sheegaynaa inay jiraan dad aad u waaweyn, kuwaasoo carruurta yaryar cunoo dila. Sofia waxay u sheegtay odaygii waayeelkahaa riyadaasi inay waxyaabo fara badan ka faa'iidayaan labadooduba. waxay u sheegtay, haddii aan samayno riyada isla wakhtigaasna aan boqoradda hor istaagno, waxaa laga yaabaa inayna aqoonsato. odaygii waayeelka waa uu ka yeelay fikraddeedii. waxa uuna sameeyey wakhtigaas riyadii ay ka dalbatay. waxa uu isku daray waxyaabo aad u fara badan. waxa ayna yimaadeen qasrigii boqoradda, iyagoo isla wakhtigaas ku wareejiyey riyadii. islaantii boqoradda ahayd waa ay riyootay, waxayna ku riyootay waxa ay rabeen. wakhtigaas waa ay soo boodeen iyadoo aad u naxsan. waxa ayna uga sheekaysay riyadii ay aragtay gabadhii u shaqaynaysay. gabadhu waxay isku dayaysay wakhtigaas inay dejiso. waxa ayna u sheegtay iyadoo qalbiga u qaboojinaysa waxay aragtay keliyaata inay ahayd riyo, laakiinse aysan wax dhiba ayna ka imanaynin. gabadhii shaqaalaha wakhtigaas waxay akhrinaysay joornaal goobta yaalay. waxayna dhahday, nasiib daro waxaa la waayey carruur aad u fara badan, kuwaasoo la la'yahay. laakiinse wakhtigaas boqoraddu aad ay u sii naxday. waxa ayna sheegtay wax kastoo ay ku riyootay inay ahaayeen waxyaabaha dhacaya hadda. waxa ayna ku dhahday, daaqadda daaha ka qaad. isla wakhtigaas goobta waxaaba taagnayd Sofia. Sofia waxa ay ka mid ahayd riyada uu sameeyey ninkan waayeelkaa. Sofia wakhtigaas waxay u sheegtay boqoradda in ay jiraan carruur la laayahay. waxayna u sheegtay oo kale in ay jirto duni kale ay ku nool yihiin dad aad u waaweyn. laakiinse wakhtigaas waxaa ka soo muuqday goobta ninkii waayeelkahaa. Sofia waxay dhahday, kelimo ah mid dadka cuna, laakiinse isagu waa mid aad u naxariis badan.
ninkii waayeelka waxa uu isku dayay wakhtigaas inuu la hadlo boqoradda waxa uuna sheegi kari waayey ereyga bani'aadnimada maxaa yeelay iyagu si kale ayay ugu dhawaaqayeen markii hore waxa uu u sheegay inuu caawin doono carruurta fara badan ee la leeyahay haddii ay boqoraddu garabkiisa istaagto waxa uu u sheegay in ay soo qabtaan dadka aadka u waaweyn boqoraddu wakhtigaas waa ay soo dhoweysay waxa ayna u samaysay casuumad aad u heer saraysa waxa ay siisay cunto fara badan ninkii waayeelkaha isagoo cunaya cuntadii waxa uu uga sheekeynayay dhacdooyin aad u fara badan kuwaasoo ay sameeyeen dadka aadka u waaweyn waxaa kaloo u sheegay hadda inay tahay wakhtigii iyaga la soo qaban lahaa boqoraddu wakhtigaas waxay isku diyaarinaysay dhammaan ciidanka inay amarto in la soo qabto kuwa waaweyn ee carruurta laaya waxa ay qaateen ciidankeegu diyaarado fara badan oo helikobtar ah iyo qalab aad u fara badan wakhtigaas waxaa la socday ciidanka ninkii waayeelka ahaa iyo Sofia odayga waayeelka wakhtigaas waxa uu ku soo laabtay goobta uu ku noolaa wakhtigaas waxa uu sameeyay riyooyin aad u fara badan kuwaasoo ay ka galeen dadka aadka u waaweyn bani'aadamka laakiinse nasiib daro waxay ku soo ilaabeen qasrigii boqoradda qalabkii ay ku gaadhsiin lahaayeen riyadan dadka aadka u waaweyn Sofia waxay isku dayday wakhtigaas geesinimo waxa ayna qaaday quraaradii ay ku jireen riyooyinku iyadoo isla wakhtigaas la tagtay meesha ay hurdeen dadkii aadka u waaweynaa waxaa qasab ahayd riyadana inay gaadho dadka aadka u waaweyn laakiinse qalabkii ay ku gaadhsiin lahaayeen waxay kaga yimaadeen qasrigii boqoradda wakhtigaas Sofia waa ila dhex cararaysay laakiinse waxaa ku soo kacay hogaamiyaha kooxdan aadka u waaweyn iyadu aad ayay u naxday wakhtigaas cabsiduna waa ay ka badatay wakhtigaasna waxay iska tuurtay quraaradii ay ku jireen riyooyinku halkaasna waxaa ku jabtay quraaradii riyooyinka ay ku jireen ama dhaladii riyooyinkii faraha badnaa waxay bilaabeen inay dhex yaacaan dadkii aadka u waaweynaa ninkii weynaa waxa uu isku dayey inuu dilo Sofia laakiinse waxaa ka soo gaadhay wakhtigaas odaygii waayeelka ahaa odayga waayeelka waa uu difaacayay laakiinse awood uma uusan lahayn inuu ka qabto maxaa yeelay isagoo aad ayuu uga yeeraa kan odaygii waayeelkaha kor ayaa loo qaaday wakhtigaasna waxa uu isku dayay ninka weyn inuu dilo odayga waayeelkaha laakiinse nasiibana waxaa soo gaadhay goobta ciidankii boqoradda kuwaasoo aad u qalabaysnaa waxa ayna wakhtigaas gacanta u sureen xadhig isla wakhtigaas waxay soo weerareen ciidankii boqoraddu kuwii aadka u waaweynaa waxaa dhex cararaysay Sofia dhexdooda laakiinse nasiib wanaag dhammaan waxay ku guulaysteen ciidamadu inay soo qabtaan kuwii waaweynaa waxay ku soo xareeyeen meel jasiiradda dhinac kasta waxaa ka xigay biyo nimankani sidaan filimka qaybta hore ku soo daawanay biyaha aad ay uga cabsadaan laakiinse halkan ayay ku noolaan doonaan inta noloshooda ka dhiman dhinaca uga baxsan xitaa ma jirto maxaa yeelay biyahana aad ay uga cabsadaan boqoraddu wakhtigaas waxay ahayd mid u keentay khudaar aad u fara badan si ay ugu noolaadaan dadkan aadka u waaweyn hogaamiyihii ugu weynaa waxa uu isku dayay wakhtigaas inuu fuulo buur aad u dheer waxa uu arkay dhinac kasta inay ka xigaan biyo isla wakhtigaasna waa uu niyad jabay hadda waxaynu aragnaa Sofia in aysan ku nooleen goobtii agoomaha waxay ku nooshahay qasriga boqoradda isla wakhtigaasna waxay ku jirtaa nolol aad u qurux badan iyadu waa ay ku faraxsan tahay nolosheeda waxay subax kasta la xidhiidhaa odaygii waayeelkaha maxaa yeelay isaga ayaa u sheegay inuu maqli karo codadka dadka bani'aadamka ah odayga waayeelka waxa uu ku noolyahay hadda goobta ay ku noolaayeen dadka aadka u waaweyn waxa uu goobta ku beeray dhir aad u fara badan meeshuna waxay noqotay meel aad u qurux badan Sofia waxay ku qanacsan tahay goobtan ay ku nooshahay subax kastana daaqadda ayay istaagtaa iyada oo kule waayeelkii subax wanaagsan odaygii aad ku weynaayow asxaabtada qiimaha badan halkaas ayuu ku dhammaaday muuqaalku haddii aad ka heshay muuqaalka Lexar weli haddii aadan ku soo biirin kanaalkana ku soo biir sina sharagalay muuqaalka si uu u gaaro dad aad u fara badan muuqaalka mid ka xiisa badan inta aynu ku kulmayno sidaas iyo amaano Allah